dhalinyaradii oo sheegtay inay ka soo jeedaan degmada Ibraahim Kood Buur ee magaalada Hargeysa ay shir jaraa'id ay ku qabteen hotel Xaraf waxay sheegeen in taageeradii kala noqdeen xisbiga maxaafadka Kulmiye kuna biireen xisbiga mucaaradka ee wadani. haddaan nahay dhalinyaradii degmada Ibraahim Kood Buur waxaanu garanay oo isla garanay maadaama xisbiga Kulmiye 8 sano wada ka soo ayay wuxuu qabtay wuxuu soo kordhiyay revision sixir barar dalka wali lama arag xisbi umadiisa iyo dadkiisa cuna wuxuu noqday xisbiga Kulmiye xisbiga kaliye shacbigiisii anay buu noqday revision maanta ku maray mar arkaysa dawladda daahiryaale waqtigeygii $100 ruuxa 500 maanta wuxuu maray milyan iyo 200 way possible waxa loo baahan yahay xisbi umada wada leedahay xisbiga kaliya umada wada leedahay oo dhalinyartooda leedahay ee dhalinyarta kor u qaadi kara aqoonyahanka kor u qaadi waxaanu ku soo bedelanay xisbiga wadani markaanu eegnay alashaan dalka wax qabadkiisa dhalinyarta wax qabadkooga cadaaladda inta markaanu eegnay markaa waxaanu ku soo biirnay xisbiga wadani anoo ka soomaanay xisbiga Kulmiye cadayna maanta anoo xisbiga Kulmiye ka soo digashay oo u nimid xisbiga wadani cadaaladda iyo sinaanta aan ku rajayno waxa kale oo meesha uurin wax qabiil ah maanta Soomaaliya wax doonaysa qaran ee qabiil ma doono taasoo ah maanta Kulmiye markay dhaqaaqaysa Allah oo qabanayo talaya reer wiilaamay maanta dhalinyarada dhexdeedii uu dagaal ka taagan yahay oo isku haysta haddaan reer lawan kuneen maanta Soomaaliya horumar bay doonaysaa ila cusub bay doonaysaa taasoo markaa aan u sheegay dhalinyarada iyo bulshada reer Soomaaliya ee maanta doon qaran wax rayo horumar iyo isbedel cusub taasoo markaa waxaan u rajaynayaa salaabiga kariin anoo xisbiga wadani u nimid isbedel cusub iyo wajhi artii la shaqeynaysay kala mid ka ahayd xisbiga kale ee Kulmiye kadibna u aragtay inuu u cuntami waayay habkiisa maamulkiisa siyaasadeed waxaanu dhagabi ahaantay markaanu isku nimid isla falanqaynay aanu aragnay in maanta xisbiga Kulmiye hab maamulka siyaasadeed ee uu u dhaqmaya ay noqotay mid aan ku habboonayn dal marka aanu aragnay in ay ku noqotay sheeko aynu bari hore ka soo gudubnay oo qabyaalad ku salaysan marxaladihii waqtiyadii aynu wadanka soo galay la marayay waxaanu isla garanay in aanu maanta xisbiga maanta dalka maamuli kara sidii cadaalad ah sinaan ah walaaltinimo horumar leh u hagi kara inuu yahay xisbi weynaha wadani wax la ideological ba dadka lagu hagaa laakiin hadii dadka qabiil lagu hago oo talaaya reehibila ay noqoto arrinkeena waxa kama soconayaan marka waxaan rajaynaynaa in macnaheedu isbedelkeena siyaasadeed uu ku guuleysto xisbiga wadani oo aynu ka wareegno xisbiga Kulmiye dibadda dawladda cusub ee markaasi aynu bal eegnay iyadna aynu tijaabino maadaama tan aynu tijaabinay oo aynu aragtideennay horeynu ku eegnay inuu ku dooranay inuu darab istaagnay dibadda sidii aynu doonaynay ay noqon weyday oo dibadda ay noqotay yaa reehibila ay noqotay Nishaad Farxaan Ali Star TV Hargeysa.